magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda asxaabta qaranka. Kulankaasi oo maalmihii u dambeeyay la filayay in ay ka soo baxaan natiijooyin la xiriira xal u helidda khilaafka ka taagan guddiga doorashooyinka cusub ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen xisbiyadu natiijada kulankaasi. ugu horreyn xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in aan wax natiijo ah oo markaasi xal laga gaaray khilaafkaasi aanay ka soo baxin shirkaasi. madaxweynuhu uu si cad ugu gacan sayray in uu kala diro guddiga doorashooyinka cusub kuwii horena soo celiyo, iyadoo oo arrintaasina ay ka mid ahayd qodobadii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta ee iyagu bishii la soo dhaafay ergada ka dhex bilaabay xisbiyada iyo xukuumadda. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo u hadlay xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ay xisbiya ahaan mowqif adag ka taagan yihiin ku adkaysiga madaxweynuhu ku adkaystay kala dirista guddiga doorashooyinka ee ah in aanu kala dirin. waxaanu sheegay in ay ka tashanayaan wixii ay ka yeelayaan arrintaasi, isagoo oo dhinaca kalena baaq u diray guddidii dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda iyo weliba beesha caalamka. waxaana gudoomiye cali hadaladiisii ka mid ahaa guddigii dhexdhexaadinta ee saddexda xisbi iyo madaxweynaha go'aamayna soo saareen 16 bishii 12aad. go'aankana sidaa ka warqabteen saddexda xisbiba way aqbaleen. labada xisbi waxay aqbaleen gogashii madaxweynuhu u fidiyey, waxaana isugu yimaadeen kulankaa koowaad madaxweynaha iyo labada guddoomiye ay isla qaateen. waxaa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood. waxaanu ka wada hadalnay sidii loo fulin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga, soo celinta komishankii hore iyo muddaynta xilliga doorashada oo aan ka dambayn 2020. maalintaa koowaad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore. waxaannu u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay iscasilaan. 48 saacadood kadib waanu isu nimi. madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awoodo carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday. waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawshaa kala dirista loo soo dhammeeyo. hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas. maanta waxaan isugu nimi kulankii saddexaad oo bishu tahay 13 January madaxtooyada. waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka, labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada. maanta madaxweynuhu waxaanu ka filaynay the progress report iyo wixii u qabsoomay. waxaana gunaanadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga. arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo, taasoo macnaheedu waxa yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta. geesta kalena gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Axmed Cabdidheere oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax natiijo la'aan oo ka soo baxday shirkaasi. madaxweynuhuna uu si cad ugu bandhigay xisbiyada oo dhammaystiran in ay iyagu ka soo tala bixiyaan hanaanka loo kala diri karo guddiga doorashooyinka cusub. Axmed Cabdidheere waxa uu sheegay in uu madaxweynuhu ku wargeliyay in aanu jirin haba yaraatee dariiq sharci oo guddidaasi lagu kala diri karo, taasina ay khasbayso in loo baahan yahay in si adag looga baaraan dego oo la fagur sharci iyo weliba dariiq loo helo kala dirista guddidaasi. isagoo oo geesta kalena sheegay in xisbiyahaan ay mar walba diyaar u yihiin in xisbiyada mucaaradka la kulmaan kalana tashadaan hanaanka lagu qaban karo doorashooyinka soo socda isla markaana khilaafkani looga gudbi karo. waxaana hadaladii Axmed Cabdidheere ka mid ahaa alxamdulillahi rabbil caalamiin
maanta waxaanu ballansanayn xisbiyada madaxtooyadaanu ku kulannay madaxweynahana sheergaraynayay labada xisbi mucaaridi iyo xisbil xaakimka waxaanu ka wada hadlaynaa arrimihii doorashooyinka sidii ay doorashooyinku noogu dhilcayd iyo komishanada qodobaa jira ay soo saareen guddi odayaala oo qodobadaasoo ahaa 5 qodob qodobadii xisbiyada mucaaridkiina way qaateen anaguna waanu qaadanay ninba dhinac buu iska taagaya guddiyo 2 qodob oo ka mid ah haddaan soo qaato qodobada ay soo saareen waxay ahaayeen qodobadaasu guddidii commissionka in la kala diro cusbay iyadoo sharciga loo raacayo guddidii commissionkee horena la soo celiyo iyadoo sharciga loo raacayo saasay ahayd guddida ha la kala diro xisbiyada annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye sidii ay odayaashu yidhaaheen baanu u qaadanay in iyadoo sharciga loo raacayo la fuliyo mid walba sharciyadii ay madaxweynaha iyo labada guddoomiye way kulmeen sharci lagu kala diro oo yaala oo la oran karo sharciga iyo sharcigaas lagu kala dirayaana waan weey oo ma jiro waxa ka dambeeya taas waxa weeyaan wixii sulxee la isula imanayo waxaanu anagu maanta niri waxaan maqlayay xisbiyada mucaaridka oo yiri madaxweynuhu wuu diiday madaxweynuhu wuxuu yiri saddexdiina xisbi wixii ay keentaan soo shira wada hadla xal doona xalkii ay keentaan waan idin la fulinayaa ee aan sharciga ka hor imanaynin imikana waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu xisbiyada mucaaridka la fadhiisano si ay doorashadii noogu dhacdo oo aanu isla meel dhigno sida ay doorashadu u dhacayso commissionkan hore sida laga yeelayo commissionkii hore haddii la soo celinayo sida ay wax inoogu hagaagayaan doorashooyinku inoogu dhacayaan